waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Qodobadaad warkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid ah xilliga la qabanayo shirka dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed oo la shaaciyay iyo wararkii ugu dambeeyay qorshaha Villa Soomaaliya iyo Aadan Madoobe gadaal ka riixayaan. Haddaba shirkaasi waqtiga la qabanayana wararkeena ayaad kaga bogan doontaan. Qodobada kale ee warkeenana waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Gado oo tallaabo culus qaaday kadib safarkii Janan iyo Fartaag. Haddaba tallaabadaasi maxay tahay wararkeena ayaad kaga bogan doontaan. Qodobada kale ee warkeenana waxaa ka mid ah diyaarad ku burburtay Caabud Waaq. Qodobadaas iyo kuwa kaloo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan. Aynu ku bilowno wararkeena. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo wada saareen ku shaaciyay xilliga la qabanayo shirka dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in furitaanka shirka loo aasteeyay 5 Janaayo ee sanadka cusub ee 2023 kaasi oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. Shirkan dib u heshiisiinta ah ayaa waxaa horey ugu baaqay gudoomiye Aadan Madoobe iyadoo uu soo dhoweeyay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo si weyn ay isku hayaan siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ay Villa Soomaaliya gadaal ka riixayso. 12 bishii Diseembar wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha Golaha Shacabka oo ka kooban xildhibaano dowladda federaalka ah oo deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed iyo aqoon-yahano ayaa gaadhay magaalada Xudur ee xarunta gobolkaasi Bakool si ay uga bilaabaan geedi socodka wadatashiga shirka dib u heshiisiinta ah ee uu Aadan Madoobe ku baaqay. 2 maalmood kadib gudoomiyaha iyo wafdiga ayaa waxa ay gaadheen magaalada Baydhabo halkaasi oo uu ku soo dhoweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Aadan Madoobe ayaa inta uu ku sugnaa Baydhabo waxa uu la kulmay odayaasha dhaqanka, qaybaha kala duwan ee ururada bulshada iyo laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan. Sidoo kalena odayaasha dhaqanka ayaa soo dhoweeyay qabashada shirweynaha dib u heshiisiinta waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto shirka. Gunaanadkii kulamadii uu la yeeshay gudoomiyaha Golaha Shacabka, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay isla qaateen oo ay ka soo saareen 6 qodob. Dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimada, ganacsatada, dhalinyarta iyo haweenka inay si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud u yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. 2 waa in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta hay'adaha dowladda ee labada heer federaal iyo dowlad goboleed si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijada wax ku oolka ah ee dowladnimada si looga xoreeyo dalka kooxaha khawaarijta. 3 in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilloonida siyaasadeed ee ku qotanta kalsoonida, midnimada, sarreynta dastuurka iyo xeerarka dalka u yaal. 4 sida ugu dhaqsiyaha badan in gudoomiyaha Golaha Shacabku uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardargelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta ee heer farsamo. 5 furitaanka shirka waxaa loo aasteeyay 5 Janaayo 2023 kaasi oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. 6 gudoomiyaha Golaha Shacabka ahna ku-siisimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa ka mahad celiyay soo dhoweynta diiranayd ay u sameeyeen madaxda iyo shacabka Koonfur Galbeed. Haddaba shirkan uu Aadan Madoobe ku baaqay oo ay dabada ka riixayso Villa Soomaaliyana wixii ku soo biira wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan. Haatana gudoomiyaha maamulka gobolka Gado Axmed Buule Garaad Canjeex ayaa maanta qaaday tallaabooyin culus oo degdeg ah taasi oo uga sii dari karta xiisada ka taagan gobolkaasi ee ka dhalatay booqashadii ay shalay ku gaadheen wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo Senator Fartaag. Canjeex ayaa xilka qaadis ku sameeyay
maareeyayaasha garoonka diyaaradaha ee degmooyinka kala ah Doolow, Luuq iyo Baardheere, isagoo u soo magacaabay kuwa cusub. Mahad Carab Qayse oo ahaa maareeyihii hore ee garoonka diyaaradaha degmada Doolow ayaa waxaa lagu bedelay Diiriye Garaad Xasan sida lagu sheegay wareegtada ka soo baxday. Sidoo kale Saajin Dhaqane oo ahaa maareeyaha garoonka degmada Luuq ayaa waxaa isaguna lagu bedelay Maxamed Qorane Cumar oo loo yaqaano Dhabarey. Jaamac Cali Cabdi ayaa waxaa isna lagu bedelay Cismaan Daahir Cabdulaahi Qooryare oo noqonaya maareeyaha cusub ee garoonka diyaaradaha degmada Baardheere. Xilka qaadista mas'uuliyiintan oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayaa waxaa loo sababeynhayaa inay keentay baahi loo qabo isbeddelo lagu sameeyo maareeyayaasha saddexdaasi degmo si loo helo dayactir iyo horumar lagu sameeyo garoomadaas oo muhiim u ah gobolkaasi Gado. Laamaha ammaanka ayaa sidoo kale la faray inay la shaqeeyaan maareeyayaasha cusub ee maanta loo magacaabay garoomada Doolow, Luuq iyo Baardheere ee gobolkaasi Gado. Tallaabadan ayaa la rumaysan yahay inay bilow cusub u tahay dagaal siyaasadeed oo mar kale ka qarxa gobolkaasi Gado, kaasi oo ku soo beegmaya kadib booqashadii Janan iyo Fartaag oo dhinaca Mandheera ka soo galay gobolka Gado, waxaana is-hortaag ku sameeyey mas'uuliyiinta Gado, walow markii dambe lagu qanciyey inuu wafdigu tago degmada Doolow, iyadoo gobolka Gado muddooyinkii dambe xiisado siyaasadeed ay ka taagnaayeen kadib dilkii taliyaha Niise ee gobolkaasi. Wixii kusoo biira wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan. Haatanna wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta diyaarad sideeqaad ay ku burburtay degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolkaasi. Diyaaradan ayaa ku dhacday meel u dhow garoonka diyaaradaha ee degmadaasi, waxaana soo gaadhay burbur xooggan sida ay noo sheegeen ilo dadka deegaanka ah. Sawirro laga soo qaaday burburka diyaaradda ayaa muujinaya inay ku dhacday meel bannaan ah oo ay ku yaallaan geedo gaagaaban. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya qaadka ay siday diyaaraddaasi in laga soo daabulayo, waxaana soo gaadhay burbur maadaama ay ku soo dhacday dhulka. Ma cadda khasaaraha inta uu gaadhsiisan yahay, mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta maamulka degmadaas iyo sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug. Haddaba wixii ku soo biira wararkaasna wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyey. Sidaas iyo nabadgelyo.